السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو خالد حسين محمد. waxaan ka mid ahaa ciyaartooydii loo soo xushay xulka gobolka Togdheer ee meteliyay. waxaan halkan ka sheegayaa maanta hadal uu macalinku xalay toole ka yiri baraha bulshada. waxaan u sheegayaa sidii saxda ahayd macalinku wax sax ah oo caadi ah wixii meesha ka dhacay indhaha caalamka oo dhan arkayeen macalinku uu ka gaabsaday oo muu sheegin. waxaan halkan ka cadeynayaa aan u sheegayaa macalinka marka koowaad macalinka waxaan leeyahay horta macalin wadna khiyaantay sida kumaanaan moodeen wallahi. marka labaad waxaan leeyahay macalin waxaad sheegtay in ciyaartooydu aanay khalad lahayn. waxaan ku sheegayaa macalin wixii indhaha caalamka oo dhan arkayay in rag shax line-up-kii aad soo qorteen adiga iyo macalinka xigeenku in rag khasab ku soo galeen oo macalinkii xigeenkaagii lala dagaalamay ciyaartii hore ay la ciyaareen Sool iyo tii dambaba oo laba nin oo kala jaad gacanta u qaadeen macalmaad sheegin ninkii kabtanka ku qabsaday xamse garoonka khasabka ku soo galayna khasab kabtanka kale kula soo galayna maad sheegin oo waxa jirtay ciyaartooydu khalad male. waxaan halkan ka cadeynayaa aan u sheegayaa bulshada weynta gobolka Togdheer in khaladaad ay jireen ciyaartooydaas ay sameeyeen 8 ciyaartooyna ay ahaayeen laba jeerna ay macalinka la dagaalameen macalinka xigeenka walow uu ogaa ninka maayirka barsaab xigeenka uu joogay khilaafaadka waxba kama qaban barsaab xigeenka uu ogaa macalinka laftigiisu maalintii hore uu ogaa khaladka oo barsaab xigeenka waa loo gudbiyay khaladkii cadaa uu macalinka ku yiri nimanka iga saara gaari lama saarin oo khaladkii waxba lagama qaban isla khaladkii baa maalintii dambe lagu soo noqday. waxaan halkan ka sheegayaa caawa xataa in macalinka iyo barsaab xigeenka ay ciyaartooydaasi gaar ula hadleen habeennimadii oo iyaga laftigoodu ay gelikii dambe garoonka ka sheegeen ka cadeeyeen anagu maanaan ogeyn ciyaartooyahan inay la soo shireen barsaab xigeenka iyo macalinka oo ay ku yiraahdeen waxaan rabnaa saami 5 iyo 5 macalinku muu sheegin dhaliilahaas oo dhan in xataa wax lagama qaban markasta horta tanaasulaadda kuwa tanaasulaya anagu bay haayeen hadday wax kasta noqoto hadday garmaan noqoto hadday kabtan noqoto hadday garoonka noqoto waxaan ku sheegayaa macalinka iyo dadka maamulka waxaan u sheegayaa in khaladaadka ragii lahaa macalin waajibkoodii aad marin oo aadan sheegin maxkamad baa tiri rag baan saaraya maxkamadda macalinku ciyaartooydii maadaama waan saaraya oo ragii dabada ka soo waday aad garanayso gawadhidayna la soo raacay ilaa burco inaga hari lahaa aan maamul hayn aan ciyaartooy hayn aan waxba inoo sideen ilaa burco munaafaqadeena daba waday maad sheegin waxaad tiri macalin cid baan maxkamadda tigsanaya anagu ciddaa garan maayade mar haddaad kuwii dhaliisha lahaana dhaliishii aad ka duday anagu malaanagu bay noo jeedaabaan sid macalin cidda maxkamadda la saaray in ciyaartooyda intii kale ay ahaayeen tanaasuleysay ayaan kuu sheegayaa macalin. waxaan kaloo halkan ka sheegayaa macalinka aan u sheegayaa macalin horta markii hore waxaad noo ahayd macalin macalinkayagii laakiinse macalin hadalkaagii iyo sida aad u hadashay markaan dhadhansaday macalin macalin sax oo xulka oo dhan isku mid yihiin macalin lamaad muuqan hadalladii aad ka soo yeedhisay saxaafadda waxaan u arkay ama aan u aragnay dhammaantood inaad cid dacalka saartay macalin adiga laftigaaga wuxuu uga albaadahay dowladda intii aan meesha joognay markasta kuwa tanaasulka sameynay annaga ahayn in garmaanta waxaa la yidhaahdo nasiiya oo aan markasta tanaasulaynay raggii macalin meesha foodada kuwada iyo qulubkooda markasta aan maslaxadeed ka tilinaynay macalin maad sheegin oo maad odhan khalad bay leeyihiin waxaad tiri bilaa khalad weeye nimankii garoonka dhexdiisa ku dagaalamayay macalinka xigeenka oo kale wadeerkiisa aad bay la dagaalamayay maad sheegin. waxaan kaloo halkan ka cadeynayaa sheegayaa barsaab xigeenka oo nala socday iyo macalinku inay qorshaha ka dambeeyeen aniga way cadeed manaan ogeyn anagu laakiin macalin ciyaartooydii ala soo shirteen habeennimadii ayaa maalinimadii garoonka idin ka dhex sheegayo lahaa xalay baan la shirnay waxaana go'aan ku gaarnay in 5 iyo 5 lagu ciyaaro macalin halkaas idin ka fashiileeyay anagu kumaanaan ogeyn in daacada baan ku moodaynay barsaab xigeenkana waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay wax kale iska daayay markii aan soo anbabaxaynay horta waxaan ilaaway hal mid baan ilaaway waxa weeye macalin qulubka raggii waday xataa albeerkada maalintii markaan ku soo noqonay intii caadiga ahayd 12 ciyaartooy caadiga ahaa aan qulubna wadin wanagii albeerkadeena dib ugu soo noqonay aan joognay nala joogtay adiga macalin kale raggii qulubkooda way ku yaacay shandadahoodii dadka u soo dirsanayay albeerkadii ka yaacay magaalada markiiba ka soo baxay waynagii 3 cisho dambe sii joognay inteena caadiga ahayd haddaanay qulub wadin macalin nimankaasi waxay la carareen bay qabeen intay halkii garoonkeen wixii looga ka soo sameeyeen ayay markii dambe yaaceen nimankaana macalin dhaliishoodu ma sheegin oo maad odhan nimankaasi way khaldan yihiin maxkamadda aad sheegaysa macalin aad leedahay cid baa la soo taagayana kuwaas xaq mudan in macalin la soo taago maxkamad barsaab xigeenkana
markii aan saa u soo harnay ayaa aragti noogu dambaysay lacagtii qaadhaanka ahayd ee loo ururiyey xulka iyo mid kale oo nala siiyo oo harsanaydba uu gacanta noogu hayey wallaahi bilaahi tallaahi inaanaan u arag baan isla maalintii baa noogu dambaysay albeerkada intii dambe lacagta jeebkaygaan ku joognay ambabaxa wallaahi bilaahi tallaahi waa kuwa ciyaartooyda iyo jeebkaygaan wallaahi iska soo ambabixinay maalintii baa noogu dambaysay wixii lacag ahaa uu nalaga yimi oo iska soo baxeen macalinka laftigiisu macalin uu garaacayay isuduwaha waxaan leeyahay uu garaacayay barisaab xigeenka wuu sheegay inaanu mid lacag ahayn oo naga tag buu yidhi dee waxba idinma hayna ambabax lahaynne wax kale iska daayay ciyaartooy ku dhex dhaawacmay xulka oo ilig wax ka soo gaadhay wallaahi bilaahi tallaahi uu iska seexday barisaab xigeenku intuu dhakhtar yar geeyo markiiba iligii waxba lagu soo xirin buu markiiba ka soo dhacay waan la hadalna waxaan ku gudoomiye meeshii dhakhtarkii aad ninka geysay dee dhakhtar caadiya muu hayne dee dhakhtar caadiya kaal ninka geyne dee wuu naga dhacay lacagtii isuduwahan ka qaadnay ilaan wuu joogaa ninkiiba isuduwaha lacagtii jeebkiisa ka bixiyey lacagtii la ururiyey xulka mid dambe oo hargeysana lagu siiyey wixii oo lacag ahaa wallaahi wuu la soo baxay dee barisaab xigeenka weeye dee macalin raggii qulubka waday dee wixii filankan ku wada socday dee macalin maad sheegin adiga laftigaaguna macalin waxaad noo caddaysay inaad kula jirtay dee filanka iyagaana ku sheegay markii dambena adigaa iscadeeyey macalin oo golaha iskeenay